maalintii iigu horreysay ee indhaha aan ku saaray waxaad ii furtay aragtida qalbigayga waxaadna i tustay macaanka nolosha ay leedahay waxaana dareemay inaad u dhowdahay naftayda oo aad xiriir wanaagsan la samayn karto xilli walba oo wakhtigayga ka mid ah adiga ayaan kuu hibeeyey waayo noloshayda dhadhankeedu waa adiga waana ku jeclahay daqiiqad walba oo aan kula joogo waa ay ka wanaagsan tahay tii hore haddii ay jirto qof bini aadam ah in baahi loo qabo naftayda adiga ayay kuu baahan tahay oo ay kugu qanacsan tahay iyadoon ka fikiraynin culayska imaan kara mustaqbalka waayo naftayda ayaa kuu dhegdhego dhegahaygu waxa ay maqlaan waa erayadaada oo keliya indhahaygana aragtidaada waa u daawo waa igu adag tahay saacado inaan ku waayo waxaana taas sabab u ah qalbigayga aan u dulqaadan karin inta aad iga maqan tahay ama aan ku sugaayo mana qiyaasi karo tirinta daqiiqadaha waxaase iiga sii daran inaan ku sii waayo xasuusta qalbigayga iyo maskaxdayda ayaad meel adag ka degan tahay shallaydu waa qayb ka mid ah guuldarrada balse waad u qalantaa inaan qalbiga kugu hayo mar walba kuna xasuusnaado sababta aan u noolahay aniga haddii lay weyddiiyo aniga xaggayga waa jacaylka aan kuu qabo ogow meel ka mida dunidan waxaa jiro qof ku nool ee riyadiisu ay tahay dhoolacaddeyntaada waana aniga waana ku jeclahay in ka badan inta aan wada jirno dhib ma lahan mustaqbalka wadajirkeenna ayaan ugu gudbi doonaa mar walbana dhinacaaga ayaan taagnaan doonaa runta waxa ay tahay jacaylku waa dulqaad iyo naxariis waxaana jeclahay runta inaan soo bandhigno iyadoo aan qofna niyadda laga jebin doonin mararka qaar waxaa tahay qof dadka iiga dhow dunidan aad u jeedda ee waasaca ah qofka bini'aadamka ah markii uu dhinto ugu yaraan waxaa la xasuustaa 20 sano kadibna waa la iloobaa balse jacaylka aan kuu qabo ma ahan mid aan iloobi karo weligayna waan ku xasuusnaan doonaa